السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داوديال ميلو بوا جوجتان كنا سو دواada channelkan Coronto Studio daawadayaal bulshada Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan farxad iyo caafimaad ayaan idin rajeynayaa xilli walba aad muuqaalkan daawanaysaan ha idin wacnaado ayaan idin leenahay waxaan hore idinkaga ballan qaaday inaan barnaamij documentary idinkaga diyaarin doono xanuunka aabe stroke-giisa iyo xaaladiisa waxaa ila muuqanayo barnaamijkan igala qayb galayo ila fadhiya Abshir Aways oo aan hore idinkugu sheegay Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo inta badan magaalada Muqdisho caasimadda dalka markan imid arintan aabe iyo xaaladiisa yarkii fisioterapiyada igu sameynayay runtii wax badan ayuu ka og yahay arimahan xididada neerfaha hase ahaatee isagu ma aha dhankii dhaqaatiirta iyo caafimaadka dhankii kale waa dhankii dhaqameedkii iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo qaabkii wax lagu daweyn jiray asaga ayaa idin faahfaahin doona waxaan jeclahay bal maadaama documentary idinka ballan qaadnay hase ahaatee waqtiga ciriiri uu yahay anna mas'uuliyad weyn ay iga saarnayd dhinacii kaargaraynta iyo daryeelkii aabe waxaan jeclaystay barnaamijka inaan bal waraysi ahaan idinkugu soo gudbino hase ahaatee muuqaalada qaarna waan idinla wadaagi doonaa haddii Allah awoodo uu qadaro Abshir Aways soo dhawow goreen waan dhawaa ma sha Allah haye alxamdulillah waxaa la yiraahdaa Abshir Aways macallin dadka badanana waxay yaqaaniin macalinka mucjisada xeebta liido ما شاء الله waxaa takhasuskayga oo yahay dadkan stroke ku dhacayo ama murqaha ama seedaha ama xididaha dhankoor ku dhacayo qaloocyada ku dhacayo in badan ka fahansanaa biidnillahi alkariim waxaana jeclaystaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan la wadaago xirfadahayga iyo aqoontayda oo xaafadaha aan ku hayay xirfadana waa xirfad alxamdulillah aan buugi qalin aan ku soo barta maahan waa xirfad alxamdulillah yaraantayda aan laga arkay oo barnaamijkan hadda aan ka shaqeynayo ama aan soo guda galay oo barnaamijka waalidkay ka shaqay jiray awoohaya ka shaqay jiray dadka dabiibi jiray oo dadka rheumatism ama riixa ku dhaco qaabka loo istaaga ama qaabka loo cilaajinayo oo loola dagaalamayo qaloocyadaas ama xibnahaas dhibaabooyinka ku dhacaan biidnillahi alkariim alxamdulillah waa walaalkay qaaliga goorma ayaa marka adiga iyo ku suurta gashay in adigu iskaa u istaagtid oo aad bilowdid bal dadka xanuunsan inaa caawiso waxaan bilaabay 2020kii aan bilaabay hawshan soo guda galay waqti fara badan aan soo jiitamayo waxaan u badnaay xeebta liido aan ku caawinayay dadka dhibaabaysan oo waxa waaye xeebta liido malaayiin isku timaado oo dhibaabaysan oo alxamdulillah xibnooyinkooda loo soo qoraa taqaatiirtana ay u soo qoraan culumadana ay u soo qoraan oo badda hala geeyo la dhahayo marka baddaasaan in badan joogay aan la wadaagayo ummadayda Soomaaliyeed xirfadayda iyo aqoontayda marka alxamdulillah waa tahay ma jiraan tan iyo inta aad hawshan fisioterapiyada aad bilowday kiisas amaba shakhsiyaad intaad la wareegtay iyagoo xanuunsan aad ku guuleysatay daweyntooda alxamdulillah dad badan oo alxamdulillah ilaahay gacantayda daawo ugu daray oo alxamdulillah ilaahay caafimaad ku siiyay waa jiraan waa joogaan rag iyo dumarba oo dad dhalinyaro iyo dad duquusha iyo ilmaha yaryarka oo kafka kusoo daahan oo mariga ku dhashtaan caloosh ku galo oo yaryarka oo jiifaan sariiraha jiifaan ilmaha yaryarka oo tawaxidka ku dhacayo waa ku dhashtaan oo kafkay kusoo daahan in badan ay kafka kusoo daahayaan marka mariga ku imaanayo marigaasa alxamdulillah la tacaali jiray xeebta liida marar badan lagu ka keen dad badan alxamdulillah dad badan waa ku daawoweyn oo alxamdulillah shaygan dadaalkii asbaabihi hadday alla timaad natiijadan waa tii rabbi xagiisa jirtay waan sugeynay waan noo imaaday
waxaa jiro inta badan marka la dhaho fisioterapiyada soomaalida hore way u jiri jireen micnaha ii sheeg dad lafa aan la kabi karin kabo la gacan qaloocatay toosiyo waana arki jirnay balse cilmigan iyo aqoontan waayadanba ayayna soo gaareen maxaa farqiga u dhexeeyo qaabkan oo dhaqanka soomaalida iyo qaabka casriga ah ee caafimaadka fisioterapiyada iyo adeegyadan marka laga hadlayo adeegyada hadda la isticmaalayo oo dadka hadda fisioterapiyooyinka badan ay isticmaalaan ana ma isticmaalo oo dadku waxay u isticmaalaan aaladooyin oo korontooyina ana ma u isticmaalo gacmahayga aan u adeegsadaa lugahayga aan u adeegsadaa maskaxdayda aan u adeegsadaa oo aqoonta xirfadda lug iyo gacan iyo waxaa waaye maskaxdaada alxamdulilaahi marka dadaalo fara badan aan muujiyay waana ka miro dhaliyay inta dhimanna inaan dhamaystiraan rajeynaya haddii allaha awooda loo qadaro daawadayaal abshir oo wiil dhalinyaro ah oo sida uu idin sheegay baa xirfad ahaan u leh aqoonna ilaahay uu u siiyey xididada iyo seedaha jirka bini aadamka iyo arrimaha la xiriiro ayaa waxaan fursad anigana u siiyey in uu igala qayb qaato rumaynta riyadeedii ku aadanayd aaba cali xuseen aadan oo in muddo ah sariir saarnaa lug iyo gacantiisa stroog uu ku dhuftay bal sidii fisiotherabiya loogu sameyn lahaa wuu ila shaqaynayay tan iyo intaan muqdisho ku sugnaa bal waxaad si kooban warbixin inooga siisaa cali xuseen aadan aabahay xanuunkiisa lugta iyo gacanta iyo waxyaabihii adiga aad ku aragtay alxamdulilah waxyaabaha aaba ku arkay wareega oo jirkiisa ku jiray in badan horta mareega horta wuxuu u badan yahay laba wareeg waaye wareega qayb koro iyo qayb hoose waaye qaybta hooseyso wareegeera ma aana ka shaqeyn oo shaqadeera ma aan wada furin wareega hadda aan shaqadeera xoogeera soo saara waxay ahayd wareega garabkan garbaha ku imaanayo oo qalooca ku jiray oo garbaha labeelka hor hadeena haysan miisaana waxa xakameeya soo maaha xibnahana wareeg waxay leeyihiin garbahankeena waxay leeyihiin miisaan ay leeyihiin hadduu hal dhinac u jileecsado jirka dhinna meesha u jileecsanaa oo isdhexgalaa marka alxamdulilah aabe cali alxamdulilah qaroof saa'ida gacantiisa haysatay qalooc saa'ida haysatay gacantiisa xusulkiisa waxay ku dhegneyd fanqalkan ay ku dhegneyd alxamdulilah gacanta culeysada faraha badneed alxamdulilah waa ka wada fuuqday qalooc saa'idka ahay oo haye wuu deeyey biidni illahi alkariim inta dhimanna alxamdulilah waa in yaroo alxamdulilah la baxnaanin karo wax badan loogu qaban karo waa tahay marka xanuunka intee kaga badnaa marka laga hadlayo murqaha iyo seedaha iyo xididada halkee ayuu kaga badnaa waa garabka hoostiisa oo din garabka hoostiisa kasoo bilaabato waa haddii xaqiiqada laga hadlo garabka hoostiisa oo din kasoo bilaabatay waxay u deganaysaa geestaana la yiraahdaa waxay u deganaysaa xidid geestaan la yiraahdaa jirka ku jiro oo kala qaybinayo qaybta hoose iyo qaybta koreyso alxamdulilah mareegaasa ay ku dhufatay stroga xididkaas ay taabsatay xididkaasna jirka bini-aadanka labeelkiisa oo haya oo waxaa laga socdaa waa seed hal xidid oo jirkaaga ku jiro socodka noo xukumaayo hadduu xididkaas dhibaabo gaaro miisaankaaga waa hoos u dhacaa ku imaana haddii xididkaas xididkaas dhabarkaaga maraa dhabarkeena maraa garabkan keena waa soo maraa jirka bini-aadanka wuu kala qaybinaa muga garabkan keena wuu soo maraa dhabarkan waa maraa sintaan ku dhawo degaha feelroor waa taqaanaa sooma feelroorka oo badda dadka kula dhaco taas oo berigan kula dhacayo oona ku dayihiin feelroorka badda ku dhaco dadka wuu dayaa soomaa in yaroo hadee qorqora banaanka ay usoo baxaan ee dabeesha ku dhacdo wuu daynaa feelroorkaas feelroorkan hadda aaba qabtay ama haayo feelroor aana dayayno waayo oo feelash seedaha qabsaday seedkana waa wareeganaya oo jirkan suulkaas kaaga oo farta oo lugtaa iyo suulkan kaaga waa isku wada xiran yihiin jirkaaga waa isku wada xiran yihiin hal dhinac hadday wax gaaraan waa isla wada eebsanaa dhibaatadu way wada gaaraysaa marka xididkaasaa dhibaato gaartay oo waxayna ka bilaabatay ama dhabarkay ka bilaabatay ama garabka hoostiisa ka bilaabatay labadaas mid door leh waa oo dhibaabadu waxay ka bilaabaysaa oodin ahaanaya qofka u qabanaysaa
وجلعسان فنقل كاسكيسا اسكو دغ marka ugu horeyso oo dhibku ku dhacayo ku dhacayo oo rugmana oo muruq qof oo ku jiro amalo dhinac u raacsaha oo asiga la dareema inuu dhibaato ee qofka la dareema qof muruq ku jirto qof kale ma la dareemayso ama qofka ayada la dareemayso maano qof muruq ku jiro kala oo dhinac ay u jilcsanaysa kadib waa marka qofku stroke ku dhufanayo oo maskax ahaan iyo dareen ahaan u qabanayo marka bilaadanka dareen ahaan iyo maskaxdana ay ka soo dhufanaysa oo degana teedkan oo degana ilaa feelkaas kaaga howlgala adiga marka maxaad ku cabirtaa maadaama aadan qalab wadanin gacmahaaga aad ku shaqeynaysid xididada iyo murqaha iyo maxaa ku cabirtaa waa ku cabiraa qabashada oo qofka aan qabanaa ma arkno aan dareema dikama imaanayo oo qofkaas wareeg meesha aan qabanayo waa xibin kala wareeganayso xibintaas kala wareeganayso xidido waxa ku jiraan oo dhagleynayaan oo sida waxay tirixi waxa ku jira amal oo ku buudbuuda xididkaas ilaa ay maskaxdiisa ay jirtaa xididkaas wareegaas oo ka qabatid wareeg kala kora oo leeyahay oo xibnaha saddex wareegood gacanta ku jirto saddexda wareegood midka qabatid xididka kora laga sii raadshaa sida uu dikaamkaasaan ku dareemaa mugo inuu bilaabo marka xididka qayb hoose ka qabatid korna waa ka bombeeyana sida xididka dikaama sida waxay malax ku jirto kale dhaqdhaqaaqa ka dareemaysaa fara badan dareema oo dareenahana aan dareemaani odaygan uu qofka dhibaabaysan way dareemaysaa oo meesha aan haayo ayada ay dareemayso oo meesha aan qabanayo qofka bukaanka ay dareemayo maxaan qabanayo meesha ay tahay asiga dareemayo sax marka alxamdulillah stabiska marka aad martaahi oo qofka ku daaweysid marka bukaan lagu keeno stabiska maxay stabiska waa maraa waxay tahay waxaan ugu wiideeyaa oo ishayda cabirkeeda aan saaraa jirkiisa qalooc ma u badan yahay ama seeska oo dhinaca u raaraco jirka uu raaracsama meesha u raaraco haday qaybta koreysa tahay wuxuu ku ekaanaa raaraciisa ma badnaahayo hadday la jirto sinta la jirtana raarac wuu wada raaracsamaha oo mabis celinayo kan iyo waa isku wada xirnaahayaan oo dinta lugtan waa isku xirnaahayaan waa si wada raaracsamaya jiiditaan uu bilaabaa hadday fanqalkaas qaybta koro jirtana lugteeda oo qaybta hoose fayawdahay fanqal ahaan waa la dareemaya maasha allah waa gartay carabka qofkii wuu cuslaanayaa marka sidee ku ogaataa xididka oo hadalka oo kale iyo xididadaas sidee ayagana ku ogaataa garanay xididadii iyo murqihii kale ee qofka stroke marka uu ku dhufto xididaha oo margiga maraayo markii aan qabanayo waa xididaha la riixayo xididaha waa isku wada dhigayaan oo baalka magaciisa sida jirka bini'aadanka daxala gasho oo daxleysana oo maqaarkaana asturaad noo ah jirka bini'aadanka wuu daxleystaa daxashaas oo ah waa isqabsanaa qabsin marka markii muddo uu qofka ku raagto xanuunkaas xididahaas isqabsanaayo xididahaasna markay isqabsanayaan meeshaas ay iska qabsanayaan barra fara badan soo galayo xididada halka sabab bushishun uu ku shaqeeyo leeyahay bushishunkiisa doo dhaafana hal kale uu tago amaano marka uu meesha ka baxayo xidid kale uu tagay xididkaas kale marka uu tagay isku dhiga imaanayo marka meeshaas barraas ay sababaysa meeshaas oo ka xirmato barra ay sababaysa markiga waa soo wareegana fanqa intadaan oo dhunta xididkan soo marayo halbowlaha soo marayo intay isku wada imaanaya fanqalahana dhumaayo labada xabo labada nafood oo inta ku jirto way lumayaan way qarsoomayaan markii oo codka uu xirmayo waxa maqnaahayo labadan halbowl labada nafood way lumayaan oo barka wuxuu saameynaa intadaan oo saameynaa barkaas qofkaas qabanaya intaas oo sameeyo xagee aadayaan marka labada laf intii isku wada aadaan hal meel isku aadaan lafaha barra qaranayo xididaha hal dhinac isku soo wadaadaan oo joortan inta door isku soo wadaadaan oo waxyaabaha jirka taabsanayo waxa waaye waa dabeel waa soo caburna marka dambe si jirka cabursho maxay tahay dabeel waxa waaye waxyaabaha aan ka sheekeynayo riixa aan ka sheekeynayo waa jirka bini'aadanka waa wax qofka bini'aadanka soo wajaho oo baalka magaciisa muruq qofka galaya okay oo si dabeel ahaan oo qofka uu dhaxmursaa aariyo waa jirka bini'aadanka marka dambeeso asiga qofkaas dareemayo marka ka dambeeso uu dareemayo oo baalka magaciisa
way nuuxsanaysaa marka dambe soo nuuxsanaysaa marka dambe soo nuuxsanaysaa markaas waxay sababaysaa inuu qofkaas shib dhahay oo aamuso waxaana caburin oo riixmaa ku hayaan aariyadaas oo jirka ku furmo oo jirkeena plastic waa inuu buufsamo oo aariyasmo waaba loogu talagalaba marka buufiskaasaa istaagaya iyo buufsanaantaas oo jirkaas nagta oo wada iyo shaqooyinka oo hayay iyo kala qaadkaas oo kala qaadnaya waa hakan gareysmaha oo waxa speedka kala aariyahay meesha ka baxaya oo speedka xididada jirka waxa ku jiraan oo buufiyaal ah oo jirkaaga buufaya buufiyaashaas hal xabba kamid ah dhibaabo gaarana kulligood waa dhibaabada waa saameynaysaa oo jirka bini'aadamka jeex bidix iyo jeex midig jeexyadaas marka jeex midigta qofka laga haayo oo raaraxsamayso bidixda laga qabsanayo oo raaraxsamayso dhinacaasay u raaraxsamaysaa bidixdana midigtana haddii laga qabsanayo dhinac kale u raaraxsamaysa oo u rugmanaysa labada foqolood waxa ka soconayna waa labada foqolood oo keliyaha aariile marka adigu xirfadaada dhan marka la isku soo wada duubo qofka lugta iyo gacanta barleyska ka noqday qofka codka uu ku xirmay wixii xididada iyo murqaha iyo ku aadan bay shaqada tahay mise waxaa jira howlo kale aad ka qaban kartid dadka xanuunsan waxyaabahan qabanaya waxaa waaye laf xanuunka murqa xanuunka seeda xanuunka barayliska dadka naqaayaan iyo bararka jirka ku yimaado ama buufsanaanta jirka ku yimaado qaabab loola dagaalama ama qaabab bararkaas loo dejinayo oo xeebta aan ku sameeyaa jirto oo cashiraad aan ku baxsho oo dugnaan ah oo xibnahaas la duugayo qofka waa la duugaa oo bararka loo bixinayo bararkaas waxa waa marka bararkaas oo jirka ku imaanayna waa rheumatism dhiiggaas xirayo jirka waa iska barara oo haddaa riixdana wuu riixsama buufsan camlu ah oo haddaa riixda wuu degaa haddaa gacanta ka suulka haddaa saas u saartan wuu degaa haddaa gacanta ka qaatina wuu soo kaxaa buufsanaantaasna qaabab loola dagaalamay leedahay xeebta aan kula dagaalamo waa gartay daawadayaal runtii sheekada dib ayaan ugu laabanayaa abshir aways aniga inta aanan fursada u siinin arrinta aabe inuu ila fududeeyo waxaa jiray xog ururin iyo xooraansi aan sameeyey waxaa jiray yar aan saaxiibo nahay oo inta aan Nairobi ku noqnaa stroke uu ku dhuftay lug iyo gacan uu caafimaad qabaa maanta alxamdulillah Allah u ziyaadiyo markaan sheekaysanay wuxuu ugu dhaanu gadaashaa baraleysan noqday yarkii daaweeye ayaa joogo waxaa kaloo uu yarkaa ila wadaagay oo asxaabtii ka agdhoweyna ila wadaageen wiil yar oo India laga soo celiyey dhacdada bal nala wadaag yarka India dhacdada kale waan hayaa yar India wax lagu soo qabaayo oo dokumentigiisna waa la hayaa way degayn tawfiiqay degayihiin waxaan gacan ku hayay 36 maalmood gacan ku hayay ma dhaqaaqayno meel uu dhaqaaqay ma dhaqaaqayno meesha dhigtadu qaalay gidda adooskaajiifi waa la gedinay dhina batooga loo gedinay mana nuuxsiisu ugu yaray marka alxamdulillah 36 maalmood aan shaqo fiish tarbiya u sameeyay oo galab iyo subax aan jimicsi siinay alxamdulillah hawsha ilaahay uu guuleysiyo shayga hadii aan natiijada ku ceelisid natiijada way dhalataa alxamdulillah cunuga hadda وعافمات قوا دكسلي ودكسي ولتا فرسنا جرو واي صح الحمد لله وجوا التوفيق يدقين عديسة دوكمنتيا لقاها ما شاء الله فيديوها لقاها ما شاء الله الحمد لله ذلك لنا صار واجبات runtii saaxiibkay marna walaalkay abshir muddo bila aan hadda wada shaqeynay walaalkay ila dhashay oo kala waaye runtii waa qof gacantiisa aniga koronto ahaan aad aan u jeclaystay xirfadiisa وانا كيف تربيه بدن هورن وانا idinku amaanay runtii qaabka uu la tacaalayo qaabka uu isugu xilsaarayo talaab walba uu qaadana adkaarta ayuu ku bilaabaa waxyaabaha aniga aan ku jeclaystay ay qayb ka tahay runtii ilaa hadda walaalkay uu ugu dhagan yahay oo wuxuu leeyahay aabe qaybtii kore waan ka shaqeeyay waqti waan geliyay qaybta hoosa ii dhimana fursad ii siiyay laakiin aniga challenge ku jiro oo aabe xanuun kala jiro wadnaha iyo maskaxda muxuu ahay shaqadiisa tarbiya kaliya oo ma baahna runtiina contribution ka aabe hadii uu si fiican igu dhaqaaqi lahaa ama qarash fiican intuu ii noqdo muqdisho waan ku sii baxnaanin lahaayo waan sii dadaali lahaa laakiin inta hadda aan gacanta ku hayo
runtaan idiin sheegayaa waxaan qariya ma hayo inta aan hayo haddaan muqdisho lasii joogo oo ay meesha iigu go-aan oo igu kala go-aan ragga dadka jaalanjiga igula jiraahay waa sidai ay rabeen oo waxaa leeyahay koronto owalba aaba meel umusan wadin marka si ay taa u dhicin ayaa waxaan jeclaystay walaalkay inaan dhaho niyadda iyo fur waana ku kalsoonahay muxuu ahaye kalsoonidu waa wax weyn waana ku kalsoonahay haddii aabbahan 7 sano sariirta saarnaa lugta iyo gacanta marka la yidhaahdo in haddii muddo bila aan fursad usii siin lahaa inuu ila dhaqaajin lahaa oo ila kicin lahaa haddaba maasha allah qaybaha kore oo dhan uu igala soo shaqeeyey gacanta maanta xididka ugu soo furay tricks wuxuu isticmaalaa ka duwan trickyada kale gacantii dhan ayuu kala bixiyeyba si dhiiga bal arrinta ma sharax oo gacanta ku aadan oo talaabta aabe gacanta xaggeera wareega leedaha oo gacanta alxamdulilah wareega ee leedaha waxay tahay wareega inta rabtaan ku jiro oo xibinta meeyga kala wareeganayso alxamdulilah xoolaaleyda waa yaqaanaa dadka xoolaha qalaan murqalena meesha ku jiraan mugtahay marka wareega uu leeyahay inta xibinta marka waxaa ilaalinaysaa gacanta haddii ay saas iskugu jirto fanqalkan waxaa la garab saarays aad raadinaysaa qaabka garabkaaga oo gacantaas ay usoo geli garabsaarka maxaa garabsaarka garabkaan garabsaar miya garabsaar aad raadinaysaa say gacantaas fursad aa u heshid toosnaanteera aa u aragtid gacanta marka furnaashadaas kor aa u heshid waxaa isku dayaysaa markaas oodin bukuskan oo inta ku jiro oo followerkan bukuskan inta ku jiro boxma meesha ku jiro inta waxaa ku jiro muruq la iska marka muruq la iska garabkaaga yar baxday kamerada marka okay ishaan oo ku aadan xusulkan iyo waxaa isku aadinaysaa garabkaaga markaas kala jiida ku bilaabaysaa kala bixitaanka gacanta qaabka u kala bixayso waxay tahay waa inaad rimcasho kor u raadisaa rimcashadaas oo ah fangalkaas adoo celinayso iyo fangalka adoo celinaysid waa inaa inta aad gacanta ka saartaa waa soo diifaysaa ayadan nuuxsanayso jacda yara yeelayso oo xibintaas kala baxayso qofkana isla markaasna bararay samaynayso oo gacanta intaad aa kala bixisid walaa farahaan oo dhan waa soo wada shaqeynayaan oo hal mar aa soo dayso inta wareegan xirnaashada oo qofka saas iskugu yaalo in badan haday saas iskugu taalo kala fogayso waxaa soo wada rooraya dhiig inta waxaa ku jira xinjiro dhiigaa ku xiran xindhahaa soo wada furmayaan walaa faraha dhan waxaa dhan waa wada shaqaysanaa oo fartaan saas u laabneertaa iyo ayadaa isfidinaysa fidskaa ma rabto ayadaa isfidinayso marka inta kala baxaysa marka kala bixitaanka dadna waa culaysay ku tahay dadna waa ilaahay waa u fududeeyaa maasha allah runtii hadda alxamdulilah aabe gacantii muddada qalloocnayd ilaahay maanta uu furfuray dhiiggii hadda iyo xididadu ay ii shaqeynayaan mar allaala markaan india sidaa aan u tagno gacanta culays badan iguma hayn doonto qaybta dambe hadda igu haystaa oo uu leeyahay ilaa aan kala furfuro fursad isii laakiin anigaana waqti badan haynin qarashka aan gacanta ku hayo ee aan aabo kula tacaalayana runtii ma dabooli kara baahideeda inaan muddo xamarna kusii hayo xaggana aan dhakhtar iyo howlo aan kusii dhamaystiro walaalkay wuu i fasaxay niyadda wuu ii furay laakiin waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan hal mid idinla wadaago marketing uma sameynayo ma xayeysiinayo waxaa jiro dad badan oo walaalaha oo soomaaliyeed waalidiin badan oo soomaaliyeed oo xanuunsanaa jiro kuwa fisioterabiyada u baahan ee la dhahay lugtaan iyo gacantaan ma shaqeynayaan dhabarkaan ma shaqeynaya kuwa la dhahay runtii waxaan aaminsanahay in abshir uu alla subxaana watacaala ayaa caafimaadka bixiyo wax walbana alla ayaa awoodo yusuf aaba caagamar runtii caafimaadka alla bixiyo wax walbana alla subxaana watacaala ayaa awoodo laakiin qofka bini aadamka ah haddii abshir oo qof soomaaliyeed oo xanuunsan oo u baahan keliya fisiotherabiyo uu fursad u helo waxaan aaminsanahay in uu ku guuleysan karo walaalkay haddaba wax badan ayuu ugula guuleystay inta aan aabe iyo xanaanayntiisii iyo keergarayntiisii aan gacanta ku haynin
maxaa ka leedahay arrimaha bulshada Soomaaliyeed diyaar mu tahay inaad caawisid oo aad muxuu ay sheeg haddaan lambarkaaga soo siiyo kale aad arrimahaas wax ka qabato diyaarana waayo ummadda Soomaaliyeed inay u adeego waajibaad saaran waaye xirfadaan aniga aqoontaan imalihi oo amaanay ugu tahay shay inay gudbiyo oo waajib saaran alxamdulillah ana ummadayda Soomaaliyeed aan la wadaago xirfadeydii aqoonteydii inaan la wadaago waa u diyaar gareysanahay diyaarana u ahay ummadda Soomaaliyeed waxay dhibaabo oo tabanayaan baahida gaarka qabaan inaan u adeego alxamdulillah aqoonteydii xirfadeyda iyo juhdigii iyo waqtigiina u baxsho oo u diyaar gareysanahay waana diyaaran u ahay alxamdulillah Soomaali meel walba ay joogtana soo dhawaadaan wadalka aniga mustaqbalka waxaan ku aaminayaa insha Allah bidinillah alkareem maadaama aabahay oo intaa sano xanuunsanayo walaalo Soomaaliyeed ee maanta garabkayga istaageen contribution-koodii iyo dhiirigelintoodii maanta aan ilaa India ku tagayo waxaan rabaa anigana inaan dhiirigeliyo walaalaha kale ee dadka ka xanuunsanayaan furayaasha aan ku howlgeli doono ayuu ka mid yahay oo aan dadka ku caawin doono saan hore idinkugu sheegayba haddaan safarkan India ka soo laabto oo aan Muqdisho ku soo laabto waxaan rabaa abshir inaan walaalaha kala shaqeeyo idhaahdo abshir magaalo hebel ama meel hebel intaad tagto bukaan hebel qof hebel oo xanuunsanaya soo caawi inaan idhaahdo hadafkaas xitaa waan damacsanahay walaalkay umaana sheegin bal Soomaaliyeed qof alaala qofkii anigu inta aan hadda ka faa'iideysan karo walaalkay waan ka faa'iideystay laakiin aabe muusan ii dhammaystiri karin oo anigii caqabadii challenge kale oo dhinaca caafimaad ay igu xeeran yihiin laakiin qofka walaal ee ka faa'iideysanayo lambaradeeda baraha bulshada waa ay yaalaan anigu India haddaan joogo xitaa WhatsApp-kayga lambarka Muqdisho +252615507945 amaba 25 WhatsApp-kaas igala soo xiriiri kartaa waan ku siin doonaa lambarka abshir haddii uu bukaan uu kaa jiifo labadiina waa soo kin xiri doonaa insha Allah biidnillahi alkareem walaalayaal soo dhawaada barnaamijkan aniga walaalkay waan ka faa'iideystay intaan ka faa'iideysan karo in idinkuna aad ka faa'iideysataan ayaan idinkugu diyaariyey walaalkayna aan xirfadiisii iyo aqoontiisii bulshada Soomaaliyeed aan u bandhigo intaan kaliya kuma koobnaan doonto barnaamijyo badan ayaan la diyaarin doonaa abshir insha Allah qofka xirfadda leh ee gacantiisa iyo aqoontiisa rabaahay inuu bulshada Soomaaliyeed ugu adeego weligii waan dhiirigelin doonaa fariinta ugu dambeysa bulshada aan la wadaagaysid fariinta la wadaagayo waxa waaye in aan alxamdulillah garab lagu siiyo bal ugu dambeyn fariinta aad la wadaagaysid bulshada Soomaaliyeed fariinta aan la wadaago waxay tahay bulshada Soomaaliyeed alxamdulillah aniga hadda meel xarun ah alxamdulillah laga soo xiriiro ma hayo alxamdulillah walaalo badan oo Soomaaliyeed oo alxamdulillah aan lugtayda ugu tagana way jiraan oo shayga dadka badan alxamdulillah guriyahooda ugu taga ku caawiya ku soo controla alxamdulillah badan xeebtaasna waa u badan oo xeebtaas waa ka ilaashada oo dad badan ay isku imaadaan xeebta liido waxaan ka raadiyaa dad dhibaabaysan oo xibno hore dhibaabo ka muuqato marka alxamdulillah Soomaaliya waxaan ka codsan lahay biidnillahi alkareem inay salka dhulka ii dhigaan oo alxamdulillah meel laygala soo xiriiro oo alxamdulillah ummadda aan ugu adeego aniga kaliya ku adeego maayo ummadda aan rabaa inaan ugu adeegay biidnillahi alkareem in arrintaan ay ka shaqeeyaan garab ay igu siiyaan biidnillahi alkareem walaalo Soomaaliyeed oo dhibaabaysan aan rabaa inaan u adeego waxna badan aan ugu qabto إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا وقرب كاغن تاغن هاي ما شاء الله بريه برشدا يسيدي فرينت هذا لو قارسين لهانا وأنا كشقين إن شاء الله بإذن الله الكريم قف على لقفك سومالية ويجلسوا حريرنا ونكوشوا قد بين دونا سيا دعاء وسيد إن شاء الله بإذن الله الكريم قفك الرباهي في ستربيه ولوج يقعن أما حديدو أما مرقو أما وحون rabaahi in muxuu ah qof uu ka xanuunsan yahay walaalkay wala soo xiriiri karaa connection-ka ugu horeeya ay aad ku heli kartaan abshirna anaa idin sameyn doono markii bariisa bulshada ay hirgalaan aniga muxuu ah isha ugu soo qori doono lambarkiisa insha Allah biidnillahi alkareem walaalayaal aan isgarab istaagno
walaalayaal aan caawino dadkeena xanuunsan aan isku naxariisano. alla subxaana watacaala wuxuu yidhi dhulka isugu naxariista, anigana cirka ayaan idinkaga soo naxariisan doonaa, samaawaadkan idinkaga soo naxariisan doonaa. anigu halkan fariin ayaan rabaa. inta aan hawshan aabbo ku guda jiray hal arin oo waxaa jiray dad badan oo walaalo soomaaliyeed oo bukaana oo xanuunsanayo oo ila soo xiriirayaa jiro. messageka ugu xoogan ee aan kala dhex baxay waxay tahay qofkii bukaanka ahaa, waalidka ahaa ee laisku dayay in la daweeyo, in micnaha ii sheeg isagii uu wax maamulayo. qofka xanuunsan walaalayaal waa in la dhihi karaa jacayl, waa in la dhihi karaa aabbo, hooyo, qof walba uu yahay in micnaha la dareensiiyo waxaan loo sameynayo, daryeelkan loo sameynayo, in micnaha caafimaadkiisa looga shaqeynayo, inaan qofkii lagu xanaaqin. ilaa qof xanuunsan waay gacantan ma rabo qofki in laga taabto, ma rabo, uu diidayaa. waxaa suurtagala qofkii markaa wadan geysid oo kale inuu ku dhaho wadankan aniga ma rabi. wixii aad u sameynayso waxaa suurtagala qofki inuu diido. fisioterabiyada marka la sameynayo walaalayaal u dulqaata, u adkaysta aadaarka iyo xanuunka qofka uu hayo, waayo waxaa la rabaa inuu qofka xanuunka ka istaago, uu ka bogsoodaa la rabaa. inta xanuunsan allah inoo caafiyo, inta dhibaataysan dhibaatada allah ka dulqaado. soomaali maxamed meel walbo ay joogto culaysaa jiree, culayska walaalayaal allaha inaga wada dulqaado. awlaada ilaahay baari ha inooga wada dhiga dhammaanteen. inta waalidiin ah muxuu ahaa ii sheeg adduunka joogtana waxaan alla subxaana watacaala uga baryaynaa in caafimaad taama uu waalidka alla uu noo siiyo. ayaan alla subxaana watacaala ka baryaynaa caafimaadka iyo xanuunka alla subxaana watacaala ayaa hayo. inta wax la-aanta ay haysana alla subxaana watacaala wax ay muxuu ahaa ii sheeg caafimaadkooda kula tacaalaan alla subxaana watacaala ha siiyo. muraadkeena walaalayaal dhammaanteen muraadaan wada leenahay, muraadkeenna allaha wada sahlo adduun iyo aakhiro. wixii aanan nagu fidnan u ahayn adduunkeena iyo aakhiradeenna qof walba idin ka mida walaalayaal allah ha u saqiro, allah ha hordhigo. soomaali maxamed runtii waxaad tihiin dad muxuu ahaa isha geesiyaala oo xilliga keli ah ee laysgarab istaago waa xilliga qofka soomaaliyeed u garab istaago u baahan yahay. soomaalidima inay jirto keliya meesha laga dareemana waa qofka marka la garab istaagayo, garab la siinayo. aan iscaawino walaalayaal, aan iscaawino, aan isgarab istaagno. dalka nabad allah inooga dhigo, inta yaree nabadda aan haysano allah inoo ziyaadiyo. isbitaaladeenna, caafimaadkeenna, wadankeena Soomaaliya allah inooga dhigo inaan ka maarano wadan dibadeed. allah inooga dhigo goobaha caafimaadka walaalayaal naxariis lidinkaga baahan yahay, daryeel lidinkaga baahan yahay. waxyaabaha badan ee looga ordayo dibadeed waxaa waaye inta waaye nadiif inta ka noqda, daryeela, naxariis u sameeya bukaanada, dawooyin tayo leh u keena bulshadiina. in laga maarmo ayaan xaq alla ka rajeynaya insha allah wadan dibadeed biidnillahi alkariim. abshir adna guul aan ku rajeynaya garabkaaga allah gala insha allah. soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.